dilawarinta iyo kaaliyaasha ka shaqeeya gaadiidka ka dhex goosha magaalada Boorama iyo dalka aynu jaarkanahay ee Djibouti ayaa maanta cabasho ka muujiyay wadaxumo la soo daristay iyagoo sheegay in ay wadaxumadanina ay sababtay gawaaridii oo ku rogmanaya dhexda gaar ahaan buurta Dhoobo wadayaasha iyo kaaliyaasha oo dareenkooda ka hadlaya arintaasi ayaa waxa hadladooda kamid ahaa waxaan ka cabanaynaa iskoolkan ama walba waxa ku xilal bilcida magaalada lacag ba ku xilal 100 riyaal in laga caawiyo dawladda hoosaaday tahay dawlad Soomaaliland haday tahay dadweyne haday tahay sharafti magaaladan ilaalinayna waxaan u sheegayaa gaadiidka iyo anagu waan ku dulmanahay meesha itaalka iyo intan deeg ku noqday intii ugu darneed dadku dhakhtarka halkaas ka mari jiray wadada maantana halkan ay dhex maran hadda halka ku tugo istiraan oo to gaadiidka oo dhan $100 ma ka qaad hantidayadii wax kabaan u baahanay walina kumaanaan hawlgelin lacagtooda meesha adduun baan ku bixinaa inta ayay halkaas qalbuga halkiisa station toortiisa ya ayaa ma si lagu hadhay ya dawladda hoose waxba kama qabato anaga ka qabsana tagala baabuurti waxa laga istag wada xumid baa laga istata ilaa 7 gaari oo toodhay oo inuu gaari dhaawiciisi wali ka daaw yaalo darawalkii farta ka dhaawacayo xagaaga noqodka la noqonayo kaliya wadadii uu socday isagoo wax kale ka soo bixin una ay la gooday meeli kuma yeelana si halka ay baabuurtu ku dhacaan dhidid bay baan tahay meesha leeyahay dhidid waa wado buurtu ay dhinac marto oo idinku ma isku dayday wali inaad wax ka qabataan ururino gaadiidka oo dhan $100 ma ka qaad hantidayadii wax kabaan u baahanay walina kumaanaan hawlgelin lacagtooda askariga laba ee Djibouti loo yaacada maamula eedade yaa ilaa gaarisa maamula gaariga halkan ka baxa marka gaarisa lagu qabsado eedade ee la sii daayo isagoo Soomaaliland dadkii ku dhaadhiciyay haddana Djibouti baa lagu xidhaa alaabta halkan aan ka saarno ee dukaanada loo yaacada ay leeyihiin gaariga Djibouti inta laga soo celiyay laba xidiglii Djibouti isagoo la socdo inakii katiinad lagu sido yaa kaalinta haybe dukaan agtiisa laga raray alaabtii lagu raro Djibouti lagu galiyo lagu xidhay gaariga sababta loo xidhan maxay kontrabaan baad loo yaacada ku soo rogtay waa Soomaaliland gaarigu waa Soomaaliland raatan halkaana uu ku rogay xuduudii Djibouti inta laga soo celiyay xuduudii Soomaaliland laga raray maxkamadna lagu geeyay si kastaba ha ahaatee arintani maanta dareenkooda kicisay wadayaasha iyo kaaliyaasha gaadiidka ka dhex goosha Boorama iyo Djibouti ayaa waxa uu soo beegmaya xilli ay muddooyinkii u dambeeyay ay jireen cabasho badani inta u dhaxaysa dalka Djibouti iyo magaalada Geerisa Maxamed Cabdillaahi Dabshid adeed.com magaalada Boorama.